Welcome back ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washakud bulshadii markale video cusub soo dhawaada. Maxaa ku cusub software kan loo yaqaan Adobe Lightroom update-kiisii ugu dambeeyay ee 2022. Well, ayama dhowr ka hor ay shirkadu soo update gareysay software-ka oo ay soo saartay update-kiisii 2022 loogu talagalay. Sidaad inta badan igu aragteen anigu waxaan ku jira dadka isticmaala software-kan Lightroom-ka sanadii ugu dambeeyay oo dhan. Marka waxa jira waxyaabo ay doorkan ku soo dartay oo aad yani u anfacay dadkii isticmaali jiray Lightroom-ka runtii. Sidoo kale qof kasta oo photographer-na hawl far badan ka saacidi doona oo markuu sawirka edit gareynayo ka caawin doona in waxyaabo far badan ay fududaadaan. Features-ka marka ay update-kan ku soo dartay waxa ugu muhiimsan oo aan maanta rabaa inaan la wadaago nooca loo yaqaan auto mask ama base auto select mask. Auto masking-kaasi marka wuxuu ka caawinayaa مثلا haddaad tahay qof Photoshop soo isticmaalo waad garan kartaa markaad doonayso inaad object-ga background-ka ka saarto oo aad dabeedna kala jarto halkaas oo doonayso inaad background-ka tusaalahan sawirkaaga dhex dhigto iyo waxyaabahaas oo kale process-ka loo mariyay yani waad garanaysaa waxa kamid ah inaad yani jarjarto oo layers-ku kugu farabataan oo dabeedna mashaakil fara badan iyo hawl fara badan aad marto. haddaba auto masking-kan wuxuu ka caawinayaa adigoon shay kala taabsanin markaad doonayso inaad iskaga kala doorato inaad ayer select garaysato erka adigoon yani hal button mooy wax kale aadan taabsanin. marka maanta waxaan rabaa inaan ku tuso update-kan cusub aan ka tuso waliba feature-kan aan ku leeyahay auto select mask baa la yiraahdaa ama auto masking basida loo isticmaalay sidii uu shaqeyso. marka inna marka soo eegnay wayahay halkan sawir imika aan halkan ku haysano waxa weeyaan sawir landscape oo aan ka soo qaaday dhagax korre. marka imika sawirkan halkan aan ku haysano waxaad arkaysaa inuu yahay mid aan la edit garin oo raw istabiska anigu aan maro aan markaan edit garaynayo sawirada aan maro waxa kamid ah in cirkuna caadi loo arko ama base highlights-ka shadows-kana caadi loo arko. marka waxaad arkaysaa imika inuu yani cirku ka yar cadiyo shadows-ka marka si sawirkuna waxa weeyaan kaliya wuxuu khusayaan la isku dheeli tiro kaliya. marka haddaba toos ay nagu global auto select mask. marka mashaakilkii dadka markii hore haysan jiray markay sawirada edit garaynayaan waxa kamid ah sawirku inuu wada socdo oo sida Photoshop-ta aadan select garaysan imika kale cirkaas oo kaliya hadii kale way soo raacayaan. marka maadaama taas Lightroom ka maqlaan jirtay qofku wuxuu sameyn jiray in uu yani linear gradient ka doorto kadibna uu drawing ku sameeyo yani inta yar sare uu doorto saa markuu dabeedna uu kala doorto oo dabeetana imika saad arkaysan la halka casaanka waxa yani waa inta doortay ka dhiganto ilaa dhulkii bay ka soo raacay qaybtaan doonayna ka saaro yani waa adagtay haddana dib u celiyo qaybtaas cadaanaysa ama brushes baa la isticmaali jiray ama kana la isticmaali jiray kadibna halkaas ayaa exposure-ka iyo waxyaabaha hoos looga dhigi jiray ama kor looga dalici jiray yani mashaakil fara badan buu lahaan jiray awal. marka imika kaliya isdhibi maysid waxaad tegaysaa un qaybta ama sida halkan aad arkaysa lagu soo daray labada option select subject iyo select sky way kala duwan yihiin. marka bal imika kan landscape-ka waxaynu ku dayi doonaa noocan loo yaqaan select sky-ga maadaama aynu doonayno inuu cirka select garaysano qaybta waxaan ku dhufanaa select sky-ga. select sky-ga ku dhufanaa artificial intelligence-ga bilaabay hawshiisa inuu wado isaga marka in yar sugnaa computer kasta wuxuu ku xiran yahay in halkaas in degdeg noqoto wuxuu ku xidhay computer kasta inuu fast noqo inuu yahay sidiisaba fast ama inuu slow yahay. marka yar iska sugno oo waqtigiisa qaato boom oo kaamka select gareeyay cirkiyo kaliya yani waxa aad dareemaysaa yani how uu si detail oo sawiraya waxaad ku dareemi kartaa ama uu si detail wax u select gareysanayo. imika kale hadana ka soo dhaweyno halka hadana ku soo dhaweyno waxaad arkaysaa inuu xitaa laamihii intuu dhaafay xageedii dambe oo yani select gareeyay yani waa unreal weeyaan waxaanay intelligence uu sameynaya imika. marka imika sida halka kaga muuqdo wuxuu select gareeyo kaliya waa cirkiyo kaliya ayuu select gareeyay boom. haddaba marka imika markuu soo select gareeyay ayaad halkaas ka bedeli kartaa haddaba hawshaada inaad ka sii bilaabto exposure-ka ama se inaad hoos soo dhigto haddii damka dhigno daweyn karnaayo waynu meeshan uu kaga waali doonaa waxaan doono way marka halkaas ayaad hawshaada ka bilaabanaysaa yani halka click oo kaliya ka xigta inuu yani inaad cirki doorato markii horena wadii ogaa hawshii mariyay achieve taas waa taas. haddaba imika kale imika cirki baad dooratay hadhow sideebad yeelaysaa markaad doonayso inaad qaybta shadows-ka aad doorato. haddaba imika cirki kaliya ayaynu dooranay laakiin hadda markaynu doonayno in halkan oo kale aynu inta shadows-ka ama dhulka aynu doorano simple waxaad samayn kartaa oo kale inaad copy samaysato ama aad tiraahdo kadibna aad dib soo doorato mid kale ama wase waxaan ka tusi karaa halkan inaad samayn karto wax loo yaqaan invert waxa weeyaan intii hoose inuu doorto soo arkasan inay casaatay okay inta saad dooranaysaa kadibna waxaad samaynaysaa inaad halkaas oo kale aad exposure-ka kala dolaado. That's too much. Okay.
يعني feature kan imika update kan lagu soo daray yani auto select mask kaasi waxa weeyaan aan waxaan oran karaa waa shayga ugu muhiimsan lagu soo update gareeyay Lightroom. Okay, taadinu iska reset sameeyno sawir kale ayaan rabaa inaan idinku tusaaleeyo bal sida isagana loo sameeyo marka doonayso inaad subject iyo kale aad doorato. Imika kii hore waxaan sameeynay sky in dooran isoma oo the landscape ah imika hadda bal ku portrait doonayno inuu subjectiga aynu eegna bal yani how yani si intee leego detail ayuu u kala garanayaa meeshii subjectigu ahaa iyo meeshii kale balantine tijaabin. Sawirkan kale isaguna rowga waxaan dooranaa qaybta ku qoran tahay select subject. Sadarka sanadka waxa ku sawiran qof markii horna halka waa landscape baa ku sawirnaa exactly waa si fiican bay u garanayeen tusaale ugu bixinay. Marka select subject kaasaan ku dhufanaa isagana bal yar been square sugnaadee AI intuu hawshiisa wadanayo. All right, marka uu hadaba way subjectiga uu sida u qabtay waxaad ku dareemaysaa inuu qabtay oo subjectiga soo helayeen kale casaanka yar sida kuwii hore kale uu dul saaray sawirka hore ayuu dul saaraya marka imika objectiga exactly buu soo qabtay. haddana xitaa soo dhaweyno waxaan arki karnaa haddana soo dhaweyno in uu edifyadii yani uu shaygan gashanaa edifyadiisii oo dhan si fiican u hayo ayaad halkaa ka arkaysaa marka yani si perfect ayuu hayaabin oran karnaa. All right, marka halkaa markuu qabto waxaad samayn kartaa inaad yani sidaad yaad isu edit garaysato. imika kale haddaan doonayay inaynu all the way hoos u dhigno oo kale madoobayno in karnaa anaga waxaa madow ka dhignay haddaan doonno kor baynu kicin karnaa dabeetana backgroundkan ku qarin karnaa odaygu isbaabiyey marka waxyaabahaasoo kale yani adiga ayaa edit garaysanaya oo sida kugu habboon kasta ka dhigan karaya. imika hadda waayay waa si wanaagsan wuxuu hayaa subjectigeennii backgroundkii laakiin ma hayo. haddaba sidee baynu u wareejin karnaa subjectigan imika aynu select garaynay oo aynu backgroundka cad aynu ugu wareejin karnaa. Simply calaamada yar ayaan dul istaajinaa kadibna wuxuu selectigiiba soo dul saaraya right click baad siinaysaa waxaad oranaysaa invert wuxuu dabadna u wareegay imika cadaankii dambe ayuu u wareegay waa ka imika casaanaya markaan saa dul dhigo mouse-ka. marka halkaas ayaad sagnaa haddaad doonayso inaad yani cadaanka ka yaraysaad ka yaraynaysaa waa ka exactly yani toos buu u qurux badnaaday oo waxaad arkaysaa inaad yani all the way aad ka yaraysay cadaankii exposure-kii isdhibi maysa markaas markiisii hore anigu yani lightku si fiican buu yahay laakiin halka dambe ma background-ka ayaa xoog cadaan marka background-ku meel hoos u dhignay yani sawirkaas imika sidaas ayuu totally normal ku yahay totally sidaas ayuu normal ku yahay grading-kaagii iyo yani inaad si edit garaysato in badan oo hadhay. sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan idin tuso a bunch of presets. halkan waxaa ku cusub waxa weeyaan presets ayaa ku cusub marka si aynu presetsku aan idin tuso waxaan marka hore sameynaynaa waan ka baxay imika laakiin si inaan yani sideedaba aan hoos u dhigo exposure si fiican u arki karno. All right, presetsku waxa weeyaan sadka garanaysan waxa weeyaan yani editing uu la soo hagaajiyay oo Lightroom-ka kaasoo dabadna copy ka qaadan karayso oo dabadna aad soo dul dhigan karayso yani sawirkaaga oo ku qaadan karaya. markii hore presetskan way ku jireen Lightroom-kii 2021-ka laakiin update-kan cusub ayaa lagu soo daray in yar inta lagu soo daray waxa kamid ah cinematic 2-ga iyo travel 2-ga saa kamid ah. imika marka haddii uu nimaadno qaybtan travel 2-ga yani presets-ka kale haddii uu nimaadno presets-kan yani waxaan tusayaa waa wax iyada laftirkeeda lagu soo diray oo muhiim ah cidii aan yani hore u isticmaali jirin oo kale presets-ka waxyaabaha waa yani waa qayb cusub oo lagu soo diray ka faa'iideysan karto. marka haddii galo travel 2-ga waxaan arkaynaa travel 1-ka ama 11-ka 12-ka sanay karnaa nooca kale yani mid kasta dul saarno arki kartaa sidoo ka dhigayo sawirka 15-kaas oo kale 16-kaas oo kale 17-kaas oo kale iyo 18-kaas oo kale. sida oo kale maan sheegin laakiin waxaan xasuustay oo kale imika lagu soo diray qaybta urban and architecture-ka ka waxa lagu talagalay sida magaca ka muuqata magaalooyinka iyo waxyaabaha in yani lagu sawiro marka wad yani magaca eegina laakiin wad qaadan kartaa wax kasta oo door wad isticmaali kartaa. wakaas aniga yani presetskan xaqiiqatan lagu soo daray imika aan oran karo ugu fiican yahay package-yadan waxa kamid ah qaybtan urban-ka kaasaan anigu isticmaali lahaa dhammaan isticmaalayo laakiin imika ma isticmaalayo waxaan isticmaalayo waxa jira presets anigu aan gacanta ku hayo insha Allah dhawaan rabo inaan idin wadaago oo aan sameeyay jiro oo dhowr xaba marka kuwaas inta badan isticmaalaa kuwan ma isticmaalo laakiin waa great start point weeyaan qofka aan garanaynin editing-ka sida loo sameeyo iyo presets-ka waxyaabaha aan garanaynin totally يعني uu ku dhufan karaa markuu kala soo baxana halkaas uu ka yareyn karaa oo يعني intensity kala dhul ahaanayaan oo kala hoos u dhigi karaa ama kor u dhigi karaa
laakiin qaybta ugu quruxda badan lagu sheegaya waxa weeyaan British-ka marka la eegayo lagu soo daray waa qaybta Urban-ka khaanada Urban-ka ku qoran tahay ee ku dhex jiraan dhowr ka shay packaging-ka kuwaasna waxa weeyaan qaar iyagana lagu soo daray marka bal ka waran aduu saad u aragtaa update-kan cusub noocu yahay yani ma feature cusub adiga ku anfacda lagu soo daray ma qayb aan yani ku anficin ama uu ka sii xumaaday ba noocii hore oo nooc update-kan dambe uu xumaaday oo kan maxaad ugu aragtaa anu completely mind blowing baa ku dhaco yani hawlihii ugu adkaa ayuu AI ka si fududeynaya Photoshop tuna asaasoo kala Photoshop tuna waxay leedahay iyadana features cusub lagu soo daray that's it marka video inta inooga qada asxaabta waxaan rajeynayaa inaad aan ku soo koobay oo wax badan aan ka taabtay laakiin aad wax ka faa'iiday baan rajeynayaa marka bal ra'yiga iyo gulawada qaybta commentiga waxaan ku xusuusinaya video-gan aad ka heshay inaad like saarto sidoo kale aad subscribe tirahdo channel-ka oo aad nagu soo biirto oo aad notification bell-kana aadan ilaawin sababtoo ah kaas wuxuu ku sahlaya dad taabsta inaad video-da soo socda ay ku soo gaadhaan marka video fiican oo kale inoo socda insha Allah oo inuu hoos u sii geli doono bal editing-kan iyo Lightroom-kan iyo waxyaabahaas oo kale video kale aad iyo aad xiiso badan oo inoo soo socda marka hay ilaawin notification bell-ka inaad taabato inta ku kulmi doono video ka soo socda mashquul bilashada leh peace